barnaamijkeena waxbarashada waxaa si toos ah ku soo gudbin doona anigoo ah Xasan Cabdi. barnaamijkeena iyo toddobaadka waxaan ku booqnay dugsiga sare ee Salaama Secondary School. anoo ku wareysan doona ardayda wax ka barata dugsigaasi sare ee Salaama. Cumar Iidan waa maamulka dugsiga sare ee Salaama Secondary School. waxaan ka qaadan doonaa marxaladii kala gedisanaa ee uu soo maray dugsiga Salaama Secondary School. marka ugu horeysa ku soo dhawaaday barnaamijkeena waxbarashada iyo waxbarashada muqal. idinka mudan aad iyo aad mahadsantiin waan ku faraxsanahay runtii inaad nagu soo booqataan dugsigan barnaamijka waxbarashada aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa. waxaad faahfaahin naga siisaa xilligii aasaasay dugsiga sare ee Salaama. waxaa la aasaasay dugsiga sare ee Salaama sana dugsiyeedkii 2011-2012 macnaheedu waxa weeye dugsigu waxa uu imika uu jira waxa weeye muddo 6 sannadood 2 dafcadood 3 dafcadood ayaa runtii ka baxay oo foorfoora marka waxa weeye dugsiga taariikhdiisa waqtiga la aasaasay waqtiga waxaad rajaynaysaan mustaqbalka ama idin qorshaysan mustaqbalka sanadkan gudihiisa? runtii waxa dugsi ahaan ama iskuullada Salaamo oo dhan hadduu yahay dugsi sare hadduu yahay dugsi hoose dhexe haddii ay yihiin qaybaha luuqada runtii waxaanu leenahay aragti ama vision aad u dheer mustaqbalka runtii inaanu noqono dugsiyada ugu wanaagsan xagga waxbarashada hadday noqoto tacliinta hoose dhexe iyo sare runtii waxaanu rajaynaynaa runtii in ardayda iyadu tacliin ahaan ay kaalmaha ugu sameeya ka galaan imtixaanaadka inay dhibco wanaagsan runtii ay keenaan annagu runtii aad iyo aad ugu faanayna inaanu macallimiin tayo leh runtii qualified aqoon badan oo maadooyinka dhigayana ay dugsiga waxay ka dhigaan. had iyo jeer dugsiyada gaarka loo leeyahay waxay fadhiisiiyaan fasalada arday aad u tiro badan. waa maxay runtii wallaahi kolley annagu ardayda klaasyada waanu runtii aad baanu ilaalinaa waanu xakamaynaa dugsiyada privateka laftooda waxa laga yaabaa kolley waa dugsiyo aan runtii kabniin aan helin dhismayaasha ay ku jiraan laga yaabo inaanay iyagu lahayn waxa weeye waa suuragal in dhinacyada ay wax ka egeen laakiin annagu runtii aad baanu xakamaynaa intaas klaasyaduna waa klaasyo waafiya loogu talagalay hawo fiican leh runtii environment wanaagsan leh ardayda ku filan runtii numberka ardayda runtii aad iyo aad baan u xadidnaa laakiin kolley way jiri karaan iskuullada privateka qaar ka mida in numberkii loogu talagalay klaasyada number ka badan ay fadhiyaan asbaabahaasina runtii ay ugu wacnaan karaanoo runtii iyagoo kabniin aan helin iyagoo kurooyin ku jira runtii waxyaabahaas waa iska suuragal laakiin annagu kolley qoladaa kama midnahay. dugsiyada gaarka loo leeyahay had iyo jeer waxay macallimiintii tayada lahayd ka fadhiistaan dugsiyada dowliga ah arrimaha maxaa ka fadhiistaan? runtii iskuullada dowladda iyo kuwa privatekuba runtii waxa weeye hawl muhiim oo qaran bay hayaan waxay ka shaqeeyaan runtii waxbarashada annaguna runtii waanu jecelnay inaanu dhiirigelino in waxa weeye macallimiintu ay labada dhinacba ay wax ka dhigaan because maxaa yeelay dugsiga privateka iyo dugsiga dowladda labadaba waxa dhigta dad runtii muwaadiniina ama ardaydeennii baa dhigata marka runtii labadaba loo wada dadaalo oo ay macallimiintu labadaba ay wada buuxiyaan ama ay labada qayboodba ay ka shaqeeyaan runtii waa muhiim annaguna runtii waanu jecelahay in macallimiintu ay labada dhinacba ay ka shaqeeyaan macallimiinta iyaduna runtii sida badan ee qaalibka ah ama intooda badani labada dhinacba way ka shaqeeyaan halkana way ka shaqeeyaan iskuullada dowladdana way ka shaqeeyaan way ka gumaysan yihiin runtii waananu jecelahay in maadaama kuwa halkaa dhiganayaana ardaydeennii yihiin kuwana ardaydeennii ay yihiin labaduba
inay macallimiintu labada darafba ay ka shaqeeyaan oo aanay kuwaasina runtii aanay bilaa macallimiin aanay noqon kuwana la mid marka in macallimiintu ay isku dhex wadaan runtii macallimiinteedana aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa inay labada dhinacba ay runtii ay ka shaqeeyaan oo maalmaha qaar ay tagaan waxway iskuullada dowladdu ay ka soo dhigaan runtii waana waajib qaran oo ina wada saaran maxaa yeelay macallimiin ahaan iyo maamul ahaan iyo arday ahaanba runtii daddee muwaadiniina baynu nahay runtii dalkana dee cidi uma maqna annaguna runtii aragtida noocaasa ma qabno ama inanu macallimiintu runtii aanu kuwa privateka ah aanu ku gaar yeelno laakiin waxaanu macallimiinteedu ku boorinaa inay labada dhinacba inay runtii ay ka dhigaan shiftiyada qaar ay runtii ay halkaa tagaan وهذا تسير كان كلولي هاي سنتين ugu dambeeya way soo bateen markaasoo markaa tayadii dugsigu ay ahaayeen soo hoos ma dhacayso runtii dugsiyada soo kordhaya kolley dee wasaarad baa u xil saaran waxa weeye kolley boolicygooda iyo siyaasadoodana iyaga runtii leh laakiin runtii intaan anigu ogahay ee aan ka warqabo dugsiyada privateka ahi waxa weeye waa iskuulo runtii aad iyo aad u tayo fiican runtii waana dee maanta waa wax lagu majeerto oo runtii aad loogu farxo tacliinta iyo waxbarashada runtii ay hayaan waanan runtii dhiirigelinaynaa iskuulladu haddii ay tayo waxbarasho oo aad u fiican ay hayaan oo runtii kororka ay kordhayaan runtii ay tayadii waxbarashadu ay la socoto runtii waxaan isleeyahay maxma laakiin kolley kororka iskuullada privateku ay kordhayaan hawl runtii aan anagu dee iminka ka jawaabi kara maaha waa runtii waa policy iyo arrimada runtii wasaaradda waxbarashada u yaalla laakiin haddii tayada waxbarashadu ay runtii ay fiican tahay ardayda iyo nambarka ka soo baxayaana ay dad tayo wanaagsan runtii sabab lagu diidaa inay kordhaan runtii dee u malayn maayo inay jirto وهذا سؤال كل كان موجود أنا واحد هاي دكتور هذا الحرب وصل وسطنا الموجودين حبيب كل مسجد runtii waxa weeye dee iskuulladu waa isku wada mid xidhiidhada runtii iskuullada naga dhexeeyo baa runtii isagana naga dhexeeya wax runtii xumaana iyo wax dhiboo naga dhexeeya runtii ma jiro waa runtii waxay ka mid yihiin dee iskuullada aanu bahwadaagtanahay runtii ee aan xidhiirka fiican runtii ay naga dhexeeyaan marka runtii wax dee xumaana iyo wax dhiba runtii nagama dhexeeyaan laakiin hadafka guud aynu wada leenahay wax weeye in dee mas-uuliyadda guudayna wada saaran ee wax weeye dalka iyo dadkaba naga wada saaran inaynu wada shaqayno runtii wax xumaana oo gaaroo wax weeye maamul ahaan naga dhexeeya ma jiro laakiin xiriir wanaagsan oo runtii wada shaqayneed baanu leenahay oo aad iyo aad u fiican arday bay noo soo bedelaan runtii waanu bedelaa waxyaabo badan oo runtii naga dhexeeyo oo guud oo aanu wada wadaagna runtii jira oo ay hawshaanu haynay tacliinta runtii ay ka mid tahay marka wax runtii xumaana oo naga dhexeeya ma jiro runtii su-aasha ugu dambeysay weydiinta waxay tahay bulshooyin baa ina daawanaysa arday baa ina daawanaysa maxaad furin oo ku gudbinaysaa markaas runtii waxaan u gudbin lahaa ardayda na daawanaysa ama runtii na dhegaysanaysaba maanta runtii tacliintu waxa weye waa fure tacliintuna runtii waa muhiim maanta runtii waxaa lagu kala horumaray waxa weeye dunidu ku kala tagtay runtii waa tacliin qofka runtii tacliin barta unbaa runtii dee jahlina ka xorooba dalkiisa iyo dadkiisuna runtii horumaraan marka runtii dhalinyarada waxaan aad ugu dhiirigelin lahaa in wax weeye tacliinta iskuullada la tago in wax la barto maanta runtii waddamada horumaray ama doonaya inay horumaraan waxyaabaha runtii ay qodobaysteen waxa ugu muhiimsan waa runtii waa tacliin wadamo badanoo runtii horumaray oo ay malaysia ka mid tahay runtii oo maanta dee halka ay maraysa aynu ognahay oo dowladaha islaamka runtii kuwa la majeertay runtii lagu dayda ka mid ah waxyaabihii horumarkan ay maanta gaareen ay ku gaareen runtii tacliin baa kowkaa weeye marka runtii in tacliinta lagu dhiirado oo iskuullada la tago oo wax la barto runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay waalidkan runtii waxaan aad iyo aad iyaga laftooda ugu dhiirigelinayaa maadaamay runtii tiir aad muhiim u yihiin oo la-aantood iyana aanay suuro geli karin in muhiim tacliin barto inay runtii carruurta inay runtii ka warhayaan inay tacliintooda la socdaan inay iskuullada runtii ka xaadiraan in wax weeye ardayda maadooyinka iyo ay dhiganayaan runtii inay ka warhayaan inay aqoontooda ka warhayaan inay akhlaaqdooda runtii ay ka warhayaan iskuullada runtii aad looga warhayo lala xidhiidho runtii iskuulladu mas-uuliyad aad u weyn bay hayaan carruurta in iyagana lagaga warhayo halka uu tacliintiisu marayo akhlaaqdiisa
akhlaaqdiisa waxa iska bedelay dabeecadiisa runtii waalidkana aad iyo aad baan ugu boorinaynaa marka runtii aynu waxbarano aynu jahliga ku xirowno aynu waxweye waxa lagu kala tego waa aqoon aynu aqoonta runtii aynu aad iyo aad ugu dadaalo garodhana dhalinyarada aad iyo aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa maamul ku-xigeenka dugsiga sare ee salaama secondary school nuur cumar iidaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على المرسلين صلى الله عليه وسلم magacaygu waa maxamuud cabdi muhamed kamida macallimiinta dugsiga sare ee salaama secondary school gaar ahaan waxaan macallinka tarbiya islaamiya wali akhlaaqda iyo aadaabta iyo tacliinta kor u qaadisteeda ayaa anaga aad iyo aad dugsigeena xoogga u saaraa gaar ahaan hablaha barnaamijkeena waxbarashada waxaan ku wareysanay ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee salaama secondary school ardaydan waa arday kamid ah ardayda salaama wax ka dhigata wala magacaada ku bilaabaya iyo garaafka ku tirsan magacaygu waa Hadiya Maxamed Cabdilaahi waxaan ka socdaa fasalka 2 maxaad rajeynaysaa mustaqbalkeena إن شاء الله خريجين نقوم معلمات في الدين الإسلامي. What's statistics? وعن كسر سيناء importance of studying statistics. waxbarashada cilmiga tirakoobka ahmiyadda aniga inta soo dhaleeya geographical information can be surprising in different forms for you. When it comes to statistical data can be comparison, make a prediction. barnaamijkeena waxbarashada kuna wareysanay ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee salaama secondary school ana waa arday kamid ah ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee salaama secondary school walaal magacaaga ku bilaabaya iyo waliba garaafka ka tirsan tahay naadida xiisiisan maxaa kamid ah dulay arday kastaaba maajir xiisay naadida aad xiisiisan waxbarashada gobolka inta wareysanay dugsiga sare ee salaama secondary school barnaamijka waxa si toos ah ugu soo gudbinayay anigoo ah barnaamijka waxa ka maqluubay maxamed cabdi maxamed inta barnaamijka la soo doono waa aniga iyo baaxda shirkadda muqal news oo salaamu calaykum I trust